fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe si aad nala socotid oo u heshid muuqaaladeena kale. muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa mid kamid ah xanuunada la soo dirsa hooyada uurka leh. waxaan ka hadli doonaa kafka furma xilliga uurka ama wax lagu magacaabo cervical incompetency oo ah in hooyada uurka leh ay dhiciso mar waliba uurkeeda marka ay marayso bilaha dhexe ama second trimester wax lagu magacaabo inay mar waliba hooyada uurka leh ay dhiciso. kafku waa qayb yar oo sida tubada u samaysan taalana inta u dhaxaysa xubinta taranka ee dumarka lagu magacaabo vaginaha iyo minka waxa ayna ku dhagan tahay afkiisa hore ee minka. qaybaha uu ka kooban yahay kafkaasi kow qayb banaanka taala oo gacanta takhtarku ay qaban karto marka la eegayo xubinta bukaanka laguna magacaabo ectocervix lehna duleel marka ay shahwadu gudbayso ay marto laguna magacaabo external os iyo qayb gudaha minka ku jirta laguna magacaabo endocervix. kafku waxa uu soo daayaa xab kaas oo mar waliba isbedela caadada kadib si uu uga hortago ama uu ugu fududeeyo gabadha uur qaadista. kafku waa uu balaartaa oo isfuraa haddii ay hooyadu foolanayso sida oo kalena duleel yar ayuu sameeyaa marka hooyadu dhiigga caadada ay ku guda jirto si ay u soo daadato caadadaasi. marka hooyadu uur qaado kafku waa uu xirmaa si aysan ilmaha abuurmay u soo daadan oo waxa uu sahlaa in ay minka ku koraan. marka qaar waxa dhacda in kafku awoodii uu ku xiri lahaa duleelka uu lumiyo jug ama xanuuno ku dhacay aawadeed sidaana hooyadu mar waliba ku dhiciso oo laga quusto in ay si caadi ah u bilo dhamaysato. calaamadaha lagu garto hooyada qabta cervical incompetency ama kafka afkiisa oo mar walba ka furmo. kow dhicis ku soo noqnoqda hooyada uurka leh bilaha dhexe ee uurkeeda ama second trimesterska. kafka oo balaarta qiyaastii wax ka badan 25 mm isbuuca 22 ee uurka. xuubka uurka oo qarxa iyo biyo soo daata. qaabkee loo daweeyaa marka cervical incompetency ama kafka mar walba furma hooyaduna ay ku dhiciso. hooyada xanuunkan looga shakiyo waxaa la siiyaa dawo lagu magacaabo progesterone 100 mg oo hormoon ah si looga hortago aruurka minka iyo in uurku jiruhu banaanka u soo baxo. caabuq inuu la soo dirso haddii looga boqo hooyada waxaa la siiyaa dawooyinka bakteeriyada lagu daweeyo sida ampicillin 2 gram cirbad ah hal waqti maalintii. haddii intaa lagu xalin waayo dhibaatada kafka furma waxaa lagu xaliyaa tolis lagu sameeyo ama tolin lagu sameeyo kafka si loo xiro duleelka dhalmada. marka foosha la gaarana dib ayaa looga fura hooyada si caadi ay ugu dhasho. waxaa lagu magacaabaa daweyntaas ama tolinkaas kafka lagu sameynayo cervical cerclage. qoraaladan iyo kuwa lamid ah oo ku saabsan hooyada uurka leh laga soo bilaabo marka ay uurka qaado ilaa ay ka dhalayso iyo 6 bil ugu horeysa xanaanada ay u baahan yihiin ilmaha dhashay waxaad ka daalacan kartaa qormooyinkiisa buugga qoys deeqe kaas oo aad ka heli kartid lambarada shaashada ka muuqda. waa mahadsantihiin.